waxaan la hadlayaa dadka gadaalka gaarka ah dadka fanka hadda gadaalka soo galay ee dhowrka sano loo camiray inta gadaalka gaarka ah ee fanka gadaal hadda ka soo gashay dadka gadaalka gaarka ow meeshaan Mareykanka la yiraahdaa fanaaniinta adduunka qurbaha inta joogta fanaan kasta wadan iyo magaalo degan yahay loogu soo martiyo oo dadka ku soo dhaweeyo oo gobonimadii iyo sida looga baahnaa markii loo soo martiyo fanaan kasta waajibna loogu lahaa inuu guto anagu dadku waa soo dhaweynaa waana xushmaynaa dalmar gabadha walaashiisa ee disrespectiga ku samaysay sidoo ugu soo dhaweeyay Minnesota oo kulligan ugu soo dhaweynay Soomaalidu waa ogeyd kulligiina waa ogeydeen reer Yurubna waa ogeeyeen kan waa halka xasaanadu ay ka bilaabantay fanaanada Kiin Shaamac oo show uu soo dhashay fanaanka caanka ah ee dalmaryare ka daba dhashay sida ay sheegayso fanaanada Farxiyo Kabayare oo afka furatay oo isqaban kar weeyday markan waa muuqaal ay baahinayso fanaanada Kiin Shaamac iyadoo taageerayaasheeda reer Australia ugu baaqaysa inay halka ku qaban doonto show ay soo qabsatay dhowr wiil ka hor laakiin abaal gud waxay ka dhigtay disrespect oo waliba aanan halkan uma baahnin inaan ku faahfaahiyo laakiin oo anagu waxaan isku daynaa inaan wax walba hoos u dhaqno way shaqayn weyday disrespect bay jawaabtii oo dhan ka dhigtay iyo xushmad darro waxaan marka go'aansanay anaga inaan walaalkeen qabsano walaalkeen anaga qabsanay showgaas Australia anaga go'aansanay dalmarna ka codsanay inuu haro oo kansalo mid waa midaas hadal iyo dhamaantiis DJ Subeer iyo aniga iyo Hodan Cabdiraxmaan iyo asxaabtii dalmar ay kalowska ahaayeen oo dhan waxaan ku faraxsanahay inaan ku guuleysano walaalkeen dalmar inaan baajino kana kansalno showga Australia sababta aan ugu soo hadlayna waa inaan ahay afayeenka fanaaniinta Soomaaliyeed intooda xushmada leh ee respectiga leh ayaan afayeen u ahay uma ihi inta saqajaamada ah ee fanka dalada fanka nala sheegata ee ciyaal suuqinta ah uma ihi aniga ee afayeen laakiin inta respectiga leh xushmada leh ee fanka wax ka taqaana afayeenkooda ayaan ahay maadaama aan ahay mid kastoo dulmi ku jira ama la dulminaayana inaan ama qabto ama dulmiga uga hiliya la dulminaayo ama aan u hiliya ama aan ugu hiliya inaan qabto ama aan dulmi lagu sameynaayo aan ugu hiliyo garabkiisa istaago fadlan noo saar subscribe ilaahay khayr ha ku siiyo wax degdeg aad ku farxday ilaahay ha ku siiyo ku soo dhawow xaq soo TV muuqaalkan leega noo saar kuna soo beer wararkii ugu dambeeyay ayaan ka daba geenayaa oo degdeg horta halkaa waxaad ku aragtaa fanaanada caanka ah ee Farxiyo Kabayare oo sida dharka u qasaashay Farxiyo Kabayare sida dharka u maydhay fanaanada caanka ah ee Kiin Shaamac dalmaryare oo wax weeyaan xil istisaaray walaalkeen dalmaryare waxa ku dhacay fanaanada caanka ah sababta waxa weey dhacdada dhacday ee waxa weey sida wax u dhaceen waadiga arkaya Farxiyo Kabayare oo aynaan aragba iyadoo weligeed wax saaw maydhaysan sidaas ay uga soo go'day maahaane waxay tiri waan ku maydhay ma ku maydhayo ma ku waray waadiga arkaya waxa meesha ka socda fanaaniintii oo isku haysata fanka waryaa badan yaa xaq lahaa inuu show ku qabto Melbourne Australia wararkii ugu dambeeyay ayaan ka daba geenaya intaynaan wararkan yaabka badan iyo isku dhafka iyo isku shafka ah ee isku shafka u gelin waxaanu ka faa'iideysanaynaa dadkeena baaharayaasha ah ayaanu caawin jirin sida aad halkaa ku aragto waa Xaawo waxa weeye waxay ku nooshahay nugaal ma cuna cuntada waa hooyo Soomaaliyeed inanteeda ayaa ka qabanaysa bartan kala xiriir marka ugu horeysa haddaba maxaad helaysaa markaad la xiriirto caawi oo sadaqa qarsoon dir way ku baahan tahay daawade adigay ku baahan tahay mid horta ma la hadli kartaa su'aal baa taala wax ma siin kartaa wax ma u diri kartaa ma wici kartaa ma oran kartaa hooyo Xaawo sidee baa tahay intaas aan awoodaa maanta iigu ducee waxaas ay haystee waxaas ay iga xidhan guurdoon baan ahay ilmaha ay dhalanaya waxbaan rabaa inaan kala farsameeyo xadhig isaga kay loohmay ayaan rabaa inuu ii kala furo haddaba wadada wanaagsan baan ku soo hordhigaye soo raac ee naqa soo qaro abaarta ka kaalay baan ku leeyahay waxay ku nooshahay nugaal waxa weeye waa hooyo Soomaaliyeed xanuunsanaysa isgarab taag
dalka gudihiisa wax waa lagu qaban waaye dadka Soomaaliyeed daafaha adduunka ku kala nool oo dhan ayay tidhahay soo garab istaagaan isgarab taagaday ku baahan tahay kii aan haynawna xil isa saaro muuqaalkan dad waxa aan ognahay dad ayaa weli daydeeya inay wax siiyaan dad baa waxa weeye bahashu hareer taalla u sii gudbi adiga haddii aad awoodana oo aad rabto inay waxyaabaha soo sheegnay aad rabto inay kugu kala farsameysamaana ka qayb qaado isgarab taag hal haddaad u dirto way kuu baahan tahay 2 5 3 50 100 intaad awoodaba waad u diri kartaa oo way baxaysaa haddaba aynu ku sii socon waxa weeye sidoo kale halkaa waxaad ku aragtaa cali walaalkan cali oo badbaaday sidaynu ognahay South Africa waxa ka socda dhacdooyin aad u yaab badan oo wiilasha Soomaaliyeed lagu dabar jaray baaqyo badan baan halkan uga dirnay balse kuwa ay dhaguhu u daroolaan ma aha yaab iyo ama kaag sidee bay wax uga dhacaan halka maxaa loo cunaa dhalinyarta halkaa ku nool sidaynu ognahay Soomaalidu waxa weeye markay wax iibinayaan way xidhxidhaan sonkorta iyo raashinka yaryar iyo waxaas ay xidhxidhaan oo ay dadka ka iibiyaan oo way kuwaasina iyagoo bahashiba isku raran oo alaabtii wada bundadaysan bay saaw u iibinayaan kuwana way kala furfurayaan markaas saasa qofku markiiba kaga horumaraya marka aynu ku noqonay walaalkan cali waxa weeye dhacdada ku dhacday waxa weeye isagoo meeshiisa iska hor fadhiyo nimanka waxa weeye xada ay ku soo baxeen way ku fureen balse uu isdifaacay meeshiisana uu difaacay nin dheer buu ahaa oo fahansanaa qaabka wax loo farsameeyo balse waxbaa soo gaadhay oo waxa weeye dhakhtar baa lagula jira soo duceeyay walaalkan idinka baahan duco aynu ku sii soconnay sidoo kale halkaa waxaad ku aragtaa qiso xanuun badan inantaydii baan arag 14 sannadood inantaydii baan arag hooyadan xaawo Ibraahim baa leeyahay magaalada Muqdisho ku nooshahay waa dhacdo yaab badan qisadan haddii aan ka dabageeyo ka dhamaan mayno kama gayoonayno waxay tiri inantaydu waxay ahayd 21 jir way tahriibtay meel ay shaan iyo cirib dhigtay sida iga tagtay 12 sano ka hor waxaan leeyahay 14 sannadood ka hor sida iga tagtay ishii ay iga tagtay baan weli leeyahay bay leedahay sidii baanan u sii eegayaan leeyahay talo qoormay soo had ka waran maxaa dareemaysaa hooyada murugada ka waran sida waa dhacdo yaab badan runtii waan la qaybsanaynaa ilaahay ha kaa samarsi hadday nooshahay haddii ay hadday ilaahay ha kaa samarsiyo haddii ay dhimatay hadday nooshayna ilaahay ha kuu soo dhaweeyo hooyo xaawo Ibraahim waa yaab dhacdo yaab badan weeyaan haddaba aynu u gallo wararka yaabka badan ee fanaaniinta dhegtiya dhabanka isku kay dhigayay haddaad maqashirtay afkiibaa shuuqda gabay ayay sheekadu hadda maraysaa fanaanada caanka ah ee Farxiyo Kaba Yaro oo maydhay oo waxa weeye dharka ka siibtay waxa weeye fanaanada Kiin Shaama haddaba fanaaniintaas maxay isku qabsadeen balse haddaynu xaq soornahay waxaan sidayna lagu yaqaanay ayaan u soconaynaa iyo siday wax yihiin inagoo ka gabaneen iyo inagoo waxa weeye xaqana uu kala hiilinayna sidaynu ognahay labada show ee waxa weeyaan la iska soo daba dhashistay ee waxa weeye dalkaas Australia Melbourne lagu qaban lahaa waxa horeeyay dalmar baa horeeyay oo ognahay Kiin Shaama baa ka daba timid oo tiri meel heblaayo ma iga haysaa reer hebelow may maqlaysaan ligtu way taagnay sidii dhiinba loo cunayo dhirtun baan ka deedeeyay dhogor waraabeede reer hebelow may maqlaysaan bay Kiin Shaama tiri fanaankii dalmar yaraa yiri dhegtiya dhabanka isku kay dhigayay markaasay Farxiyo Kaba Yaro tiri afkii baa shuuqda gaba sheekaduba way iga dabakeen bay tiri Farxiyo Kaba Yaro Farxiyo Kaba Yaro oo aan magaceeda soo qaadan ayaa waxa weeye aynu arkaynaa sida loo meeray inantii Kiin Shaama iyo waxa weeye in dalmaro aqbalay fanaanada caanka ee Farxiyo Kaba Yaro horta fanaaniin fara badan bay soo tirsatay oo ay tiri aniga ayaa mas'uulka ah sideen ognahay dalmar yare waa nin waxa weeyaan ninna waxa weeye go'aankiisa sidoo doono uu jeeri kara balse si wanaagsan buu sameeyay wuxuu yiri waar inanta u daa meesha balse inantu maxay samaysay Kiin Shaama baa khaldanayd sidee bay wax noqdeen
sidaan ognahay wax kale ma jiraan labadaa show baa laysku qabsaday cid kalena ismay qabsan balse farxiyo kaba yara waxay ka xaraaqday ka dabadhashiska ay ka dabadhashisatay ninba meelba sanadka ku qoran yahay waxaynu ognahay fanaanada caanka waxa weye fanaanka Ilka Case wuxuu hogaaminayaa fanaaniin fara badan oo Sweden ku qabanaya show balse halkaa uu ku qabsan lahaa waxa weye dalmaryare waxa ka qayb ahaa farxiyo kaba yare hodan cabdiraxmaan fanaaniin dumar badan balse waxa weye inantii Kiin Shaama ayaa iyaduna soo dhashisatay boodhkaas kolley halkaa waxaad arkaysaa fanaanadii farxiyo kaba yara ahayd oo afka furatay oo leh waxa weeye waan ka xumahay waxaa micnaha waxa weeye iyadu waxay leedahay xaggaasaa hawsha laga soo abaabulay kolley markaa haddaynu xaq samayno inantaasi hadday soo dhashisatay iyaduna ay soo dhashiteen laba showa meesha ka dhaca haddaynu falanqayno maxaa soo baxaya bay kulata dee noqon mayso meeshii dad qurun baa ku nool wuxunbaa ay noqonaysaa labadaa qof inuu miduun dee waxa weye wax ku qabsada meesha markaa maadaamay ka dhaga adeegtay sidai sheegaysa farxiyo kaba yar Kiin Shaama wakaa dalmaryarena u daayey ee yiri waxa weeye la hadlay baraha bulshada ku soo qoray iyo farxiyo kaba yar isagoo muuqaalba soo mudumina dadkiisii buu sheegay inuu shooshiyey waxa weeye uu iska daayey oo aanu ku qabanayn halkaa oo waxa weeye uu meel kale rashaynayo balse farxiyo kaba yaro aamus waxa weeye xeryaha dowladda ha igu soo dooran ku daari maayo ha idaarin baa ladhaha gebigeeda markaa waa adiga arkaya fanaaniintii oo ay farxiyo kaba yara leedahay fanaaniinta iska dabakeenka ah ee waxa weeyaan fanaaniintuna inay xushmaysaa wanaagsan markaa waxa weeye laga yaaba inaanay ogeynba Kiin Shaama waxaana dhace markaa si wanaagsan bay sameeyeen hadda ayaynu odhan karna ilaahayna ha u barakeeyo dadkaa ay waxa weye soo qaban qaabsatay Kiin Shaama waa ina Soomaaliyeed waxa weeye dee waxba la odhan kari maayo kolley laga yaaba inay wax hore isu qabeen ma ogin ilaahay bay naga ogtaa markaa waxaan ku leeyahay wararkaasay ahaayeen si kale arrinta umay dhicin ka mid ahow Xaqsoor TV dhiirigeli si aanu caawino dadkeena baahanayaasha ahee badan ee aanu halkan ku hayno ee aanu waxa weye maalinba mid u soo qabo